Assalamu alaikum guys, kusoo dhawaada casharada advantage aan uga baratay hadana kale inaan soo gudbino. Casharkeena maanta waxa uu hadlaynaa todoba cunno oo qofka bini'aadamka jirkiisa miisaankiisa kor u qaadayo. Ma tahay qof muuqaalkiisa oo jir ahaaneed aad u yar yahay oo u baahan miisaankiisa inuu sare u qaado. Ma tahay qof aanan qaadan karin dareeska nooc ugu jecel yahay inuu ku labisto. Ma tahay qof dhar alla dharkoo soo gato oo dooqiisa yahay oo ku weynaado culayska jirkiisa aad u yar dartiisa hadii aad u baahan tahay inaad culayska miisaankaaga jirkaaga oo si qurux badan u soo muuqdo fadlan muuqaalkan soo socda la daawo hadii aad ka mid tahay asxaabteena ku xiran janaalkeena fadlan subscribe noo saar gambaleelkana saaro mawduuca isleeda uu ku anfaca commentiga noo reeb cunada koowaad caanaha waa waxa kaliya jirka bini'aadamka qofka oo ku sameeyo inuu jirkiisa ku qurxoonaado caanaha waa wax kaliya qofka jirka bini'aadamkiisa kala furfuri karo because of maadooyinka uu ka kooban yahay dartiisa maadooyinka uu ka kooban yahay waa maadooyin jirka bini'aadamka u baahan yahay wuxuu ka kooban yahay maadooyin fara badan oo hormones jirka bini'aadamka anfacayo caanaha waxyaabaha oo faa'iido u leeyahay waxa kamid ah inuu jirka bini'aadamka sida muscles boneska oo adkeeyo qofka lafihiisa inuu maadkala garoos dhaco kale ama lafaha qofka inuu koro waxa saacidaya caanaha waxyaabaha ka kooban waxa kamid ah vitamin D aad u naqaano kale marka vitamin D wuxuu naga saacidaa inuu caanahan oo lafaheen ama murqaheen oo kobciyo ma lafaheen iyo murqaheen markuu kobciyo waxa saalanaysa qofka jirka bini'aadamka inuu si qaab qurux badan isku koro oo jirkiisa uusan kala sarmarin qofka oo jirkiisa kala sarmarin oo si qurux badan isku koro qofkaasiyati wuxuu noqonaa qof oo maasha Allah dharka alla dharkoo doono qaato oo ku soo qurxoonaana oo ku soo fiicnaanayo cunada labaad hilibka noocyada jirka bini'aadamka oo hilibka ahaan ugu baahan yahay soo jirka ugu qurux badnaado ugu koro way kala duwan yihiin waxa kamid ah number 1 waxa kamid ah hilibka oo eriga ama xoolaha loo yaqaan goatka ama waxa kamid ah midka loo yaqaan camelka ama geelka iyo waxa kale kamid ah kalluunka kale iyo digaagada dhammaan noocyadaas hilibida oo jirka bini'aadamka wuxuu sameeynaa body build up sameeynaa bodyka jirku qurxina jirku soo saara ilaa murqaheena iyo jirkeena wuxuu ku koraa wuxuu u baahan yahay inuu helo dhicaankaas oo hilibka inuu helo dhicaankaas hilibka waxyaabaha kale oo naga saacida waxa kamid ah mentality ahaan maskaxdeena inay ku korbacdo hadii maskaxdeena ku korbacdo jir ahaan oo ka bacno qofka intuu ka qaad badan yahay Soomaalidu waxay dhahdaa intuu ka qaad badan yahay uu ka qurux badan yahay ama waa ka jir weyn yahay saas darteed marka hilibka qofka quantity fara badan hadoo qaato jir ahaan ama muuqaal ahaan uu soo qurux badnaanaya dadka ciyaarta wrestler ciyaaro kale ciyaarta oo isqa qabsiga ciyaaro kale ciyaartaas ay dadka jirkooda waxa u baahan inay body building sameeyaan waxay isticmaalaan quantity fara badan oo hilib ay isticmaalaan si uu jirkooda u noqdo jir xoog leh oo aad u weyn oo aan loo gadi karin aan loo ridi karin marka isku day inaad hilibka bastid hadaad u baahan tahay in jirka oo kabco oo sar u qaadmo cunada saddexaad bariiska waa waxyaabo kaliya kamid ah oo carbohydrates oo jirka bini'aadamka u baahan yahay energy ahaan in loo qaato qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay dhowr energy oo loo yaqaan ATP energy iyo ADPA ATP energy uu u baahan yahay waxa waa energy kaliya oo jirka kaadinayo oo qofkan waxyaabaha dhaqdhaqaaqa exercise oo sameeyana oo kula isticmaalayo marka qofka energy uu u baahan yahay waa energy aad u fara badan oo ka heli karo bariiska kale bariiska da isticmaashay bariiska noocyo kala duwan ay kala leeyihiin bariis waxa jir loo isticmaalo qofka markuu fuuq baxayo iyo bariis waxa jir qofka markuu loo isticmaalo inuu jirkiisa building up ku sameeyo sida bariiska loo yaqaan basmati oo kale waxa aad loogu isticmaalaa inuu qofka sameeyo jirkiisa body build up inuu sameeyo body building inuu sameeyo oo jirkiisa uu ku qurxiyo bariiskaas wuxuu kala sameeyaa inuu jirkaaga qurxiyo oo sameeyo inaad jirkaaga oo xoogaha hilibka miisaanka oo kugu darsamo marka isku day inaad isticmaalka bariiskaas basatid si uu jirkaaga u noqdo jir aad u qurux badan cunada afraad cabitaanka mushakalka waxyaabaha oo jirkeena ka saacida waxa kamid ah inuu badiyo fitamiinaadka jirkeena u baahan yahay sida waxyaabaha oo ku kooban yahay hormoneska jirkeena inuu ziyaadiyo oo ka dhigo hormones fara badan oo increase ee jirkeena uu ku ziyaado soo saar dhicaamo fara badan oo hormones ah qudaarta waxyaabaha cabitaankaas naga saacida waxa kamid ah in uu jirkeena oo u baahdo waxyaabaha nafaqooyinka nutritionka oo qofka bini'aadamka maskaxiyan iyo jir ahaan uu kor lahay inuu ka helo qudaarta kale qudaarta waa taqaan waxa ku badan waxyaabaha vitaminska iyo mineralska iyo etc waxyaabaha la midka kale dhamaan waxyaabaha uu ku kooban yahay kala qudaarta wixii faa'iido u leeyahay dhamaantooda jirkeena bini'aadamka qofka hadii uu yahay qof oo jirkiisa oo aad u yar yahay hadoo isticmaal cabitaanka raashin kadib wuxuu noqonaa qof aad u qurux badan waxyaabaha ugu daran ee dadka isticmaalaan caatada ee waxa kamid ah oo cabitaanada waxay isticmaalaan inta raashinka alo cunin ka hor ama raashinka markuu la soo wado ka hor inuu isticmaalo galaas biyo hadaad isticmaashid galaas biyo caadi
ama drinking juice daa cabtid adoo raashinka dhiman tahay a few minutes idoo ka dhimanta daa isticmaashid wuxuu sameynaa appetite loss oo sameynaa waxaa xirmaayo appetite ka xirmaa hadduu appetite ka xirmana waxaa dhacaya inaadan qaadi karin amount oo ku filan oo dadka ama bariis daa cunaysid ama daa baasto cunaysid ama waxa ku qadeynaysid oo kale inaad amount qaadi karin ama ku quraacinaysid ama ku casheynaysid waxaa loo baahan yahay qofka xilliga raashinka markii oo soo dhawaado inuusan isticmaalin wax drinki oo kale cabitaanka waxaa loogu talagalay inuu isticmaalo inta aan raashinka dhaweyn iyo raashin kadib labadaas ugu fiican in la isticmaalo labadaas hadaa isticmaashid jirkaaga wuxuu sameynaya inuu gross sameeyo sida dadka jiimka qaado kale biraha qaado kale waxay isticmaalaan caano iyo moos inay isku shiidaan oo kale fruitskaas oo kale hadaa isku shiidid wuxuu noqonaa jirkaaga body build up noqonaa bodygaaga wuxuu noqonaa jir aad u qurux badan noqonaa cunada shanaad burcadka ama jiiska wax loo yaqaano waa waxyaabaha ugu muhiimsan in qofka bini'aadanka uu jirkiisa kobciyo subaxdii oo kale haddaad ku quraacatid oo kale burcad iyo rooti ama burcad iyo waxyaabo kale haddaad ku darsatid jirkaaga wuxuu ku sameynaa body build up uu ku sameynaa jirkaaga wuxuu sameynaa inuu qurxiyo tamarta uu jirkaaga u baahnayo kale waxyaabaha jirkaaga u baahnayo kale oo sare u qaadaa jirkaaga wuxuu noqonaa marka jir aad u qurux badan waxyaabaha asi oo jirkaaga u baahnayo kale wuxuu sameynaa inuu jirkaaga noqdo jir aad u nuurayo oo ifayo oo waxyaabihii oo ka koobnaay burcadka jirkii wuxuu kasoo qayb qaadanaa metabolism ilaan anaga waxaa naga maqan waxyaabo fara badan oo aan ka helaynay waxyaabahan fruitiska iyo burcadka iyo meelahan oo sida kalluunka oo kale ama hilibka waxyaabaha aan ka helayn oo kale dhammaantooda quantity mid kastaba dad quantity ka qaadatid jirkaaga wuxuu sameynaa waa iskaashana wuxuu sameynaa building up laakiin hal nooc quantity oo raashin hadaa isticmaasho jirkaaga wuxuu ku adkaanayso inuu sameeyo si qaab isla mid ah inuu u kor waa adkaanay number 6 yogurtka waxyaabaha oo jirkeena faa'iido ugu leeyahay waxaa kamid ah inuu sameeyo muscles iyo bones building wuxuu dhisaa lafaheena iyo murqaheena yogurtka wuxuu ka kooban yahay waxyaabo oo calcium fara badan oo ka kooban yahay wuxuu dhisaa lafaheena iyo murqaheena inay koraan qofka hadduu isticmaalo yogurt xataa wuxuu kaloo ka saacidaa waste production inuu qofkaani laxative ku noqdo oo calooshiisa ay socoto qofka isticmaalo yogurtka kale jirkiisa waa adkaane inuu fariisto dadka caatada ee badan waxa u badan quantity fara badan oo carbohydrate way qaataan laakiin wixii qaataa ma ka baxo soo wixii adiga qaato oo kaaga baxo soo jirkaaga u noqdo jir firaaqo ah oo waxyaabihii oo kale iyo waxyaabaha ka baxay isku jaan socdaan waxa u baahan tahay inaad isticmaasho yogurt si calooshaada u jilciyo oo isla markaa u baahat stool bathing hadaa samaysid jirkaaga wuxuu noqonaa jir oo healthy ah isla markiina saacada qashada markii la gaaro ama qadada ama quraacda waxa isticmaalaysaa quantity kugu filan raashinka mar alla markaa stool bathing samaysid iska ilaali ka taxadirnow inaad cuntid ama aad cabtid biyo dadku waxay sameeyaan badanaa waxay isticmaalaan inuu xabad sambuus cuno kale hadaa xabad sambuus cuntidoo kale ama xabad bur hadaa cuntidoo kale wuxuu sameynaa appetite loss oo sameynaa ilan quantity kugu filan jirkaaga ma ama hal glass biyo cabitaan oo cabaa waxa u dhahaa raashinka ku sii gaarsiina waxaas waxay sababayaan appetite loss ay sababayaan appetite loss iska ilaali appetite loss ka iska ilaalisid waxa ku sahlaya yogurt inuu ku sameeyo calooshaada inuu oo jilciyo oo wixii stool bathing oo kaaga baxo murqahana oo ku dhiso qofka waa aragtay hadii oo yogurt far badan isticmaalo marka kubadda ciyaarayo ma dareemayo waxyaabaha jirkiisa ku dhacayo lafaha iyo murqaha aad ugu fiican tahay isku day inaad badsatid yogurtka si uu jirkaaga u qurxoonaado number 7 ukunta waa rich proteins lagu magacaaba waxyaabaha ugu muhiimsan ugu faa'iidada badan ee proteinska jirka bini'aadanka qurxinayo waay ukunta xilliyada aadka ugu fiican in la isticmaalo waxa kamid ah subaxdii iyo habeenkii oo kale habeenka markuu qofka jiifanayo kale haddii ukunta isticmaalo kale jirkiisa wuxuu noqonayaa jir aad u fiican oo metabolized ah oo qurux badan ilaa waxa dhacayo protein metabolism jirka ka dhacayo ukunta waxyaabaha oo waxa ugu muhiimsan waa inuu qofka isticmaalo markuu body build up sameynayo dadka gym-ka qaada ugu badan nimanka gym ka shaqeeya waxay soo qoraan dhaqaatirada inuu isticmaalo ugu yaraan 6 xabo ama 5 xabo a day ukunta nooc ugu fiican oo jirka bini'aadanka kobciyo waa nooca biyaha lagu kariyo oo qolofka laga fiiqa aadka loo isticmaalo laakiin midda oo la dubo kale saliid lagu isticmaalo fitamiinaadkeeda waxay dheen culimada aad u yar yahay because of midab ahaan isku mid maaha midkan kale oo biyaha lagu karinayo aad u fiican midkaas quantity-giisa aad wax badan ka qaadatid jirkaaga wuxuu bilaabaa inaad oo jirkaaga oo qurxoonaado feerahaagana wuxuu noqonaa body build up feerahaagana waa dhismaa murqaagana waa soo baxa qof waxaa noqonaya muscle person noqonaya si uu jirkaaga u qurxiyo marka waxyaabaha kale oo aadka general ahaan aan ugu digayo dadka caatada waxaa kamid ah
inaad iska ilaalisid hurdo la'aanta dadka caatada leh badanaa xilliyada oo dadka ay hurdaan oo duhuradii oo kale badanaa socodkooda badan waxaa isku daysaa xilliyada qayluulada oo kale dadka ay nastaan naso habeenkana early time jiifo waqti fiican jiifo si jirkaaga uu soo laabto haddaadan hurdo fiican qaadanin hurdadu waxay ka mid tahay waxa ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka jirkiisa soo qurxiyo haddii hurdo la'aan ay kugu dhacdo subax iyo galab iyo habeen haddaadan waqtiba jiifanin oo hurdada ay aad u yar tahay waxaa kugu dhici doona inuu bodigaaga iyo jirkaaga quruxdiisa ay isbedelaan waana mahadsantihiin cashirkeena intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wixii tale iyo tusaale ee commentiga noogu soo reeb subscribe-na noo dhaha su'aal alla su'aashaa qabtid commentiga nagu weydii mawduuc alla mawduuca isleedaha commentiga noogu soo qor waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu